السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله قالي وائد السلامة اسكو سو نقد وناكسن او xiisa leh ما شاء الله. اولا hadaa igu cusub tahay fadlan subscribe isa hadii hore ay ila joogi jirto waan kaaga mahad celinaya waqtigaaga qaaliga like iyo share iyo comment ka igu caawi ما شاء الله. asxaabta saa ogtihiin daraad waxaan soo dhigay video calool xumo ah cunug yar oo 12 jir oo isdilay marka sheekada dhex ay noo marayso waan sii wadi waayay waan qayrooday marka maxay ahayd videogi hataa idinma macsalaamaynin raali ahaado waa idinka raali gelinaya taas marka waxaan maanta aan jeclaaday ama aan maanta waxaan rabaa haduu ilaahay yiraa inaan maxay ahayd qaybtii labaad ama part 2 ga idin la wadaago. asxaabta saa ogtihiin ilmaha ma sha Allah waa maskax miiran marka anaga waxaan u maleynaa dad ilmo doqomo macnaha oo waxba aan ogeyn ilmaha taa waxa fiican guriga wax walba oo ka dhacay inaa kala tashatid saan wax ma yeelnaa kan waa kan waxaana saan maanta saan waxa u dhaceen ilmaha maskaxda saaxiibeen marka anaga hadii Soomaali aan nahay aan dhihi karaa ilmaha waxaan ka dhignaa macnaha waxaan macna lahayn dad waaweyn hadlaaya or xaga fadhiiso dadkana kan anyways wiilkaasaytii marka sheekooyinkiisa idma dhameystirin insha Allah maanta waxaan rabaa inaan idin dhameystiro haduu Ilaahay yiraa. wiilka marka hadaladiisa qaar ahaa aniga zaaid ii soo jiitay oo macnaha experience badanna aan ka helay hadaladaas oo kamid ah wuxuu yiri hooyo markasta waxa ay dhihi jirtay waan ku necbahay markaan ku dhalay nolosheeda isbedeshay ani aabaha laba qof oo isjecel oo faraantiyan ahayn balanteen ma ahayn inaan wax dhalno adiga macnaha accidentally amal lagu dhalay macnaha lama filaana ku imaatay amal laguma filaneen macnaha kumaada jira xisaabta amal so marka saas darteeda markaan ku dhalay macnaha aabaha uu iga tagay because muu rabin inaan wax dhalo markay adigu dhala nasaan ku yeelan garan waay waxaan go'aan ku gaaray inaan ku korsado laakiin mar walba macnaha kuma faraxsani ag joogaaga marka wuxuu yiri warqada ugu qoray marka hadalada oo warqada ugu qoraa waxay kamid ahayd hooyo maadaama noloshaada cariiri aan galiyay oo jaceelkaaga aniga darteeda oo u burburay oo macnaha jaceelkaaga iyo noloshaada fiicneed iyo adduunkaaga dhan macnaha aniga darteeda ku weysay maanta waxaan hadiyad kaaga dhigaa inaan isdilo si aad farxad ugu noolaatid. horta wuxuu yiri ma sha Allah waa mahadsantahay intii ay soo korisay waa macnaha waxaan filanayo dhahay hooyo aniga hooyo fiican tahay inaad jaceyl i tusi doontid macnaha jaceyl ila wadaagi doontid dhehaysa Allah ma sha Allah wiilkay ma sha Allah ana ku darsaday of course dadkaas gaalo waaye marka dhihi lahayd wiilkayga Ilaaha isii dad wuxuu yiri dada habeen iyo maalin Ilaahay maxay ahayd baryo oo salay ku fadhiyo ama Ilaahay baryaa inay ilmo Ilaahay siiyaan adigana hadaa ileedahay qalada ku imaatay macnaha go'aan waxaan gaaray maanta inaan maxay ahayd farxadaada aan ka burburin adduunka inta maxay ahayd ku nooshahay waxaan rabaa inaan farxad iyo guartid waxaan isku arkaynaa jannada adigoo hab isiinaya adigoo hadiyad iyo wad gaalada say u maleeyaan markii oo macnaha ay dhintaan inay waxay u maleeyaan inay janno galayaan Allahu a'lam inay janno galayaan inay naar galayaan Ilaaha og marka wuxuu yiri maxay ahayd jannada isku arki doona adoo idhinkanayo adoo hab isiinayo hooyo fiican tahay waan ku jecelahay maraba jecel macnaha ina noloshaada nacab ama macnaha wax ku dhibay ay ku soo hortaagnaadaan wax ku dhibay ama waxa aad dhibsanaysid aniga aan ahay marka maanta waxaan ku siinayaa macnaha space aan ku siinaa ama jaanis oo macnaha nolosha inta ka dhiman si farxad ah ugu waartid laakiin wuxuu dhahay ka fiirso hadalada oo macnaha ilmahaaga ku dhageysid marka anaga su'aasha meesha taala maanta waxay tahay hadii lacala arintaas adiga kugu dhicin lahayd maadaama qisadan ay tahay qiso xanuun badan hadii maanta arintaas ay kugu dhicin lahayd hooyadaas sayti ma kula tahay inay farxad ku noolaan doonto ani ahaantayda uma maleynay because hadii hataa ay isku daydo inay farxad ku noolaato mar walba waxa agya hor taagan ama hor agtaalaman hor yaalo maxay ahayd wixii wiilkeeda oo ku dhaha macnaha maskaxdeeda ka siyeeray marka waxaan rabaa inay alaas anaga experience ay noo noqoto oo macnaha anagana maxay ahayd
waayo aragnimo aan kasii faa-iideysano haddii ay lacala dhacdo adi iyo ninkaaga inaa isku dhacdin ama aada ku heshiinin oo anaga alxamdulilah horta of course dad muslinaan nahay ilaahay waxaas naguma keeno laakiin xoogaa hadda qurbaha markii la imaado waxaa moodaa in maxay ahayto macnaha sidii hore dadka ay ahayn laakiin haddii lacala ay dhacdo inaa maxay ahayd adiga ninkaaga aad kala tagtiin mar walbo ilmahaaga hadal wanaagsan kula hadal ayaga ka dhig number 1 naftooda wanaag maxay ahayd nadaafadooda waxbarashadooda waxooda number 1 ka dhig hadhowd waxay ka caawinaysaa cunugaas maskaxdiisa macnaha inay si fiican usoo korto cunug maasha Allah oo aqli badan oo waxtar leh inuu ku noqdo laakiin mar walbo hadalla yar anaga macna nala ahayn maxay ahayd waxaan macna waxa u maleynayna macnaha inuu wax oo dhib leh ama big deal oo yahay amal ayaga wuxuu leeyahay wax weyn hadii macnaha maxaa la hadal yar oo adi macnaha kula fudud ayaga wuxuu la naqan karaa wax weyn oo ayaga macnaha dhaawac ku reeba ama maxaa la oo isla hadal u keeno cunugaas maxaa sas lagu dhahay ama maxay hooyada ka waday ama muxuu aabaha ka wada amal macnaha cunuga oo isweydiinaya marka lacala haday dhacdo ilaahay naguma keeno horta qoysaska islaamka khaasatan maxay ahayd qoysaska Soomaalida ilaahay waxa uga baryayaa inta isku xun maxay ahayd bogooda barcad inuu ilaahay isku mariyo maxay ahayd ilaahay qoysas fiican oo maasha Allah oo ilmo waxtar loo maasha Allah diin loo kala arag inuu ilaahay maxaa lahaa oo oga dhigo marka insha Allah mar walba asxaabta xooga saara ilmaha hadalada wanaagsan oo macnaha sadaqo ku yahay kalaanka qabooban qofka aad kula hadlaysa sadaqo ku yahay ka baran cunugaaga markay kan hooyo waan ku jecelahay hooyo kana ii sameysay hooyo kan oo mar walba ilmahaaga waqti aad la qaadato oo dabeecadahooda iyo waxoodan wuxuu necban yahay iyo wuxuu jecel yahay cunuga kala ogaanaysa marka insha Allah asxaabta mar walba koo ma aha laba ma aha saddex ma aha waxaa idin kala dardaarmaya waxyaabo macnaha ilmaha dhibaato u keenay ama ilmaha dhaawac u keenay inay macnaha aad kula hadleen ama aad ku dhihin wixii aragtidiina waa muhiim asxaabta comment-ka igu soo qora videogaanayta muxuu idin leeyahay qisooyinkan oo kala ma jeclaan lahaydeen inaan soo badiyo insha Allah qaybta comment-ka igu reeba like I say comment-kiina waa ii muhiim aniga maxay ahayd dhiirigelin oo ii yahay like-ta iyo share-ka iyo comment-kana waa xagiina subscribe-kana waa xagiina insha Allah ila video lamid aan ku kulmi doona asxaabta waxaan idin kaga tagayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh